runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo daahfurkan. markii hore waxay iga ahayd dhiirigelin, laakiin markii dambe waxaan ka helay enjoyment. anigaaba ku raaxaystay xoogaa waxay ii ahayd fasax yar bay ii noqotay muddadii yarayd oo deeqo ay soo hadal jeedinta samaynaysay. runtii hadal mug weyn oo nuxur weyn ayay halka ka soo bandhigtay. waa asad runtii brofesoradda muddo dheer soo halgamaysay. waxaan ilaahay u waafajiyey uguna mahadcelinayaa inay qoraalkan 600 iyo ziyaadada beej ka kooban ay ku soo ururiso dhammaan wixii maanta ummadda Soomaaliyeed u baahnayd oo ugu qaalisanaa oo ah nabad iyo dowladnimo. nabad baa naas la nuugo, iyadaa dowladnimada dhista, iyadaa horumarka iyo baraaraha iyo ummad meel tiigsata ay runtii saldhig u ah. ummadda reer Puntland hore iyo gadaal suugaanta ay tirisay iyo taariikhda ay sheegtay inta badan ee nabadda ku qotonto in badan reer Puntland baa iska leh. waxay u bixisay hore iyo hadda iyo hadhowba. Puntland hore iyo hadda iyo hadhowba nabad bay mar walba ku baaqaysaa. Soomaali waxay ugu baaqaysaa nabad, waxay u fudinaysaa gogol nabadeed, waxay diyaar u tahay wixii ba'soomay inay si nabad ku xalliso. nabaddu iyadaa saldhig u ah wax kasta oo bini aadan uu sameeyo. aad baan uga mahadcelinayaa runtii buuggan oo qoto dheer oo u baahan nuxurkiisa, fariimihiisana sida inta hadda inooga sheegto waa qaadan, inta kaloo gudihiisa ku jiro marka la akhriyana waan qaadan doonnaa haddii ilaahay idmo. waa wax xoga tusaalayn oo hore u dhacay iyo wax fariimo ah oo in la qabto ay la rabo. inta hadda nuxurka koobideeda aan ka gartay wixii xoga tusaale ah oo wixii dhacay cibrana lagu siinayana waxaan u baahannahay inaan si fiican u fahamno oo u weelayno. waxaana lagu dardaarmayo oo ah jid toosan oo dowladnimo ah oo aan ahayn anna waa ikan siday sheegtay inaan qaadno. maxaa yeelay qofka maskaxda tuujiyey qalinka qoray wuxuu inta ay u samaynaysay waa ummaddeeda inay dhaxal uga tagto. wixii ay sheegtay haddaanan lagu camal falayn wixii lagu celcelinayay ee nebiga ka sugnaaday ama ilaahay uu ku dhaartay ee qalanka iyo qoraalka iyo waa isma qabanayso. waxa qalinka iyo qoraalka iyo loo dhiirigelinayay waa in ummaddu ku noolaato. haddii qalin iyo qoraal iyo intii la akhriyo aan waxba laga soo qaadin qoriddiisu markaa macno badan yeelan mayso, ama entertainment iska noqoto dadka qaybtiisa ku raaxaystaan sida hufan ee suugaanaysanee hadalkeeda isu saarnaa ama qoraalku u qoran yahay. dad baa mararka qaarkood buugta markay akhrinayaan ama dhici karto inay ku raaxaystaan oo keliya laakiin aysan camalkii la imaan. laakiin buuggan wuu ka duwan yahay, fariimo cadcad oo la rabo qofka kaljarkiisa iyo dhaqankiisa iyo fakirkiisa inay wax ka beddeshaa ku dheehan sida aan dareemayo. anugu waan akhrin doonaa haddii ilaahay inaan dhammeeyana waan ku dadaali. waxaan rabaa inaan halka marka ugu horrayso ka sheego inaan xafiiskayga 100 buug horta u gaday oo rabo dadka aan ku tuhmaa inay nabadda ka shaqayn doonaan aan u hadiyeyn doono. hadday iga dhammaadaanna kuwo kale aan ka gadan doona haddii in la dhiirigeliyay u baahan tahay buugta, in wax la akhriyay u baahan tahay, inaan waxaan u baahannahay
aan waqti siino inaan is akhrino oon cilmi baarisyada aan ka qayb galno maxaa yeelay mushkiladana haysata haddaan si qoto dheera loo darsin way adag tahay in xalkeeda la gaaro waxa ay hadda koobtay ayaa nagu filan runtii xaqiiqay ka warrantay waxaan ku sugannahay bay ka warrantay waxa ay nala jeceshahayna way noo sheegtay marka waxaan rajaynayaa dabcan dumarka intay ku sifaysay waa ku filan xoogaa waagii hore ogeydo kuwa hubaysana hadda soo baxay dhibka iyo hadda maalmahan dhowrkii qof la dhaho waa la dilay oo iyagoo wax dili rabaa wax qarxinaya dumar ay u bateen marka gabdhaha ruuxaddooda waxaa la rabaa inay qayb ka qaataan nabadda oo waa dareemaya caadifadooda rag baa khaldaya oo weliba qofka marka laga soo galo dhinaca caadifadda diintaana waa dhib badanta tii hore oo dhaqanka way ka adkaysteen laakiin runtii middan diimaysan oo dadka lagu marin habaabinayo cadowga ugu weyn oo hadda Soomaali leedahay waa kaas dadkan xag jirka ah oo dadkii hore xataa dagaalka wuxuu u rabo qab iyo qabiil iyo waxmaroorsi iyo xelbaheede kuwaan anigu waa sifeen waxa ay rabaan ilaa hadda ma garan aan ahayn inay ummad jirta baabiyaan kaliya iyo waxay u adeegayaan aad looma fahmi karo marka kuwaas u baahan in meel looga soo wada jeesto oo runtii u malayn maayo kuwaas haddaysan dabcan dadka la khalday ka hadli maayo oo dhallinyarada ah nabad waan ugu baaqaynaa laakiin dadka fikirka ka dambeeya dad nabad u socda uma eka dabcan nabaddana waa la ammaanay sulxa waxa xadgudbana in xadka laga jaro ilaahay uu amray ruuxadda marka wixii xadgudba ruuxadiisa in xadka lagu qabto oo gacan adag lagu qabto iyaduna ma diidayso deganaanshahay qayb ka mid tahay laakiin xalka koowaad mar walba ma aha xalka koowaad waa nabad iyo wada hadal wixii ka dambeeyana waa sidoo kaleeto Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxaan ogsoonahay dib u heshiisiino fara badan baa la qabtay waxa kaliya ee aan isleeyahay waa u najixi laadahay laba arrimood mar daacad lagama ahamaan marna si dhab ah looma guda galayo meel saraa baa la raacay haddaan dadku xaqiiqada uusan ka warramin oo gudaha u gelin waa adkaanaysaa inuu ka gungaaro waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo wax naga dhexeeyaan nabad iyo dib u heshiisiin iyo garnaqsi xaqiiqo ah fariinta ugu horeysa waxaan u dirayaa Somaliland dhulka Puntland shaarkaaga waa lagu qabsan karaa ay hadda ku xadgudubsan tahay wada hadal iyo nabad inaan ku dhamayno oo ay ku garnaqsadaan baan ugu baaqaynaa waxaan diyaar ugu nahay wax hadda mugdi ku jira ma aha laakiin inaan wada hadal dhab ah oo nabad waarta ka dhalaya geyiga in laga gaaro diyaar baan u nahay message-keena koowaad waa kaas wax kasta oo Puntland ka xun waxaan ku raadinaynaa nabad Soomaalida inteeda kale waxaan ugu baaqaynaa deegaanada weli shidooyin ka jiraan inaan dagaal waxba lagu xallin karin nabad iyagana ay ku xalliyaan nabadda iyo dawlad dhisku waa kala duwan yihiin marka dadka Soomaaliyeed haddii maanta dhashir loo qabto qabaa'ilkooda waxba iskama hayaan oo hadda qabaa'ilka Somaliland deegaanada Puntland ahayn iyo annagu maalin walba isdhex marayna waa ehel iyo qaraaba leeyahay laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin siyaasadeed oo sax oo garnaqsanaysa la rabaa siyaasadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si dhab ah u abaarto inay ka wada shaqeeyaan deganaan si loo helo horumar oo dadka loogu adeego wax kasta oo intaa ka soo hara waxay abuurayaan calow
iyo iska daba wareeg iyo jahwareer iyo xaalad murugsan oo aan xal laga gaarin intaasba ummaddeenna dan uguma jirto marka reer puntland hadda iyo hadhow iyo berriba mar walba masajkooda koowaad waa inuu noqdaa nabad soomaalinimo midnimo ururin wixii intaa garan waayana weli waa u dhibrinaynaa dagaal ku baahi mayno laakiin iyaduna haddii qofka uu garan waayo wixii waajib ah oo dadkaas ay ku leeyihiin oo dowladnimadu farayso waa ay qaadayaan haddii lahay buuggan waxaan ku boorinayaa dadka inay akhriyaan akhrin keliya maahan inay daraaseeyaan baan ugu daraya maadaama muddo dheer cilmi baaris u ahaa bugaagtu waa kala duwantao bugaagta cilmiga inkastoo ay dhici karto dadka qaybtiisa inay ku adkaato luqadda lagu qoray oo aniga inaan ka mid aha ay dhici karto kuwo badan baa iga baxsaday ya marka waxay la tahay iyadana erebixin haddii la waayo wacadka haddaan dee qawaci waayana cabbaas iyo waxaan wacaya dadka sugaanta yaqaan kelmaddii ugu adkaato waa la fasiri karaa inkastoo kelmado badan oo asalkooda carabiga uu ka buuxay luqadda soomaaliga oo runtii aan filayo laakiin sida la isu saaray runtii waxay ahayd si aad u mug weyn meeshaan hadal badan kama furna deeqaa noo gebagabaystay taladeedina waa qaadan inaan nabadda ka shaqayno waana rajaynaynaa insha allah dallam doon oo xasilan inuu soomaaliya noqdo oo wixii tegey in laga go'aantoobana waa rajaynaynaa aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi